hooyo mili aabe mili walaal mili yadaa wadaanaystaa waxyaabaha ugu la yaabka badan leh ee saakaan halkani kula kulmay markii aan mina subaxdii ku soo kalahay waxa ka mid ahayd in hooyadani ubadkeeda ay u raadisay waxay cunaan hase ahaatee aan ugu imiday xaalad laga naxo ilmahan yar ayaa kelideed meesha horuday waxaana dul taagneed ilmahan yar kale oo aan dhaamin waxay galaan qol ka yar 2 mitir ama 2 talaabo kaasi oo ka samaysan karaatoon maryo iyo daasado loo eekaysiiyay jiingad kuwaasi oo la isku keenkeenay guddoon bade maxamed waa hooyo danyaro ah oo dibadda wadhan iyada iyo 6deeda carruurta ahi taasi oo dayaca dacdarrada iyo diihaalkuba ay dusheeda degeen malaha waalid u duceeya sokeeyo u damqada iyo walaal u diirnaxatoona balse waxay maalintii cunaan waxa ay ka helaan dadka deriska ah ee degan guryaha iyaga ka soo horjeeda waxaan ka dhigtay hooyo milihi aaba milihi walaal milihi hooyo milihi aaba milihi walaal milihi yadaa wadaanaystaa waxaad cuntaan xagee ka heshaan maalintii jaarkayga baysi waxaan namaysto ala barabaysto lixdaa wadaanaystaa dadka jaarka ka heshaan waxaad cuntaan dadka jaarka ay keenay dharigiyo karsan saasaan cunaa imikadan xataa maysa imikadan bay soo siiyay waxaan wadka u garay xataa maysto meelan galana maysto waa mise ciyaalka lix ciyaalan haysta imisa hablaa 3 hablood iyo 4 nimo way adag tahay in la hilmaamo xasuusta waqtiyadii dhibka badnaa ee ay soo martay hooyo guddoon oo aanad kala garanaynin halkan ay gashaa inay guri tahay iyo inay meel kale tahay waxa caawiya dadka jaarkeeda ah gaar ahaan guryaha ka soo horjeeda marka ay noqoto wax la cuno hase ahaatee hoygani ay ku nooshahay ma ahan mid aad adu naftaada u doorbidi karto kaasi oo dabaysha cadceedda iyo roobka midnaba aan ka celin doonin gurigan lagu dhisay ku meel gaarka guriga ku meel gaarka marka meelan degi waayay baan inta ay dhisay injineerka meeshan taa ka dhigta saasan deganay marka habeen iyo maalin ba halkan habeen iyo maalin saas iga dulqaadaa dabaysho iyo cadceedda maalintii balse mushkiladii ugu darayd waxay la soo diristay markii habeen dam ah loo baahday balloodkii ay deganaayeen injineerka dhisaya guriga ku dhegan halka ay degan yihiin ayaa markii uu ka diirnaxay xaaladooda waxa uu hadhuga sameeyay saqaaladii uu isagu ku shaqaynayay jagadii baa loo baahday ku meel gaar bay u deganayd waa lagu dumiyey waxaan la kulmay nasiib wanaag intaan gurigan dhisayay 8 shabas saasay u waran yihiin markaan arkay meesha la baabiyay saqaaladaydii soo qaadan u taagay waxaan waa saqaaladii guriga oo daasadaheegina ku xiray inkastoo tahay awoodii aad u karayso saqaaladaadii ku caawisay sax haddana gurigani dhammaantii dusha waa bannaan yahay haddii dabayl ama roob timaado ma aha wax la anfacaya ama roob ka celiya ma waa daasada harhaan aanu samaynay harhaan ku meel gaar ma u galayaan laakiin waa hooy laga dhigta ma laakiin duruuftii waa taa gelisay iyada sheekh cabdiwahaab daahir waa imaamka masjidka daarusalaam oo la deris ah halka ay degan yihiin qoyskani oo ka warhaya duruufahooda nololeed iyo waxa ay haatan ku sugan yihiin runtii xaaladoodu waa xaalad aad u culus oo waxa weeyaan eber ah waana xaafad danyara baahan waxalla waxay haysataa aanan jirin aanan ognahay oon markhaati ka nahay xaaladooda inayna waxba haysanin guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaana bulshada soomaaliyeed ee muxsiniinta ah hooyo guddoon waxa ay ka codsanaysaa inay ka saacidaan xaaladan adag ay ku sugan tahay waxaan ka codsanay inuu ilaahay ka dhisaysi waxa iga heli karaan inay soo daran hooyo dhibaataysan baanahay ugu dambayn waxaa jirta fursad qaali ah waxaana bilaabmaya 10 maalmood ee ugu horeeya bisha dilxija taasi oo ay axaadiistu sugeen in fadliga uu qofku sameeyo maalmahaasi loo libilaabayo